qof kasta oo inaga mid ah facebookiisa waxaa u saaran sawir qurux badan laakiin sawirka profilkiisa u saaran kama turjumayo qofkani waxa uu yahay iyo noloshiisa dhabta ee u qarsoon ma ogaan kartid gabadh magaceeda loo yaqaano Lisa waxaa sababay dilkeedii amase dhimashadeedii wiil ay iska barteen facebooka soo dhawaada saaxiibadeeda qaaliga ah waa anigoo ah Nadira Said waan ogahay qisadan wax badan ayaad ku qaadan doontaa hadda kadibna waad iska ilaalin doontaa dadka aanad garanaynin ee aad social mediaha ka barato fadlan pageka flowde haddii aad youtube-ka naga daawanaysidna subscribe Lisa hooyadeed waxa ay dhimatay iyada oo yar waxa aanay la soo kortay amase soo korsaday aabaheed iyo gabadha uu qabo Lisa nolosheeda oo dhan waxa ay ku soo qaadatay cadaadis fara badan iyo welibana nolol aan wanaagsanayn Lisa looma ogola in ay saaxiibo yeelato sidoo kalena in ay banaanka u baxdo markasta waqtigeeda waxa ay ku qaadataa keliyata inay guriga hagaajiso amase inay guriga ka shaqayso Lisa ilaa yaraanteedii haba yaraatee wax farxada may arag nolosheeda oo dhan hal mar ayay banaanka u baxdaa halka marna waa 3 saacadood oo ay wax soo dhigato oo keliyata mar kale oo ka dambaysa maba haleesho inay banaanka u baxdo amba ay saaxiibo la kulanto sababtoo ah waxay waqtigeeda oo dhan ku bixisaa amase mashquuliyaba shaqada guriga maalin maalmaha ka mid ah iyadoo Lisa hagaajinaysa guriga ayaa waxa ay samaysay muraayad ayaa si kedisa uga jabtay muraayadana waxa iska leh aabaheed xaaska uu qabo amase gabadha uu qabo run ahaantii muraayadii marka ay dhulka kaga dhacday aad ayay u naxday waxaana u soo gashay gabadhii waxay ula dhaqantay si xun iyadoo aflagaadeynaysa oo welibana caayaysa intaa kadib Lisa iyadoo xanaaqsan oo ooyeysa murugeysana ayay qolkeeda gashay oo isku soo xidhay Lisa haba yaraatee wax saaxiibo ah may lahayn aan ka ahayn hal qof Mark wuxuu ahaa saaxiibkeeda koowaad ee welibana u dhow iyada waxay is yaqaanaan muddo ah sanada waa saaxiibka keliyata ee nolosheeda mugdiga ah ay la qaadato marka ay rabto inay yara faraxdo Lisa iyadoo habeenkaas aad u murugeysan ayay facebooka furtay si ay ula hadasho Mark iskuna ilowsiiso dhibaatadan haysata iyo murugadan Mark weligeed lamay kulmin keliyata waxay saaxiibo ka ahaayeen waa facebooka habeenkaas waxay uga sheekaysay dhibaatada haysata iyo nolosha adkaydii soo martay ilaa imikana ay ku jirto aabahay familigiisa ayaan la noolahay oo noloshanan ku jiro haba yaraatee wax farxada kuma haysto oo si xun ay ila dhaqmaan kadib Mark ayaa wuxuu ku yiri oo aabaha miyuu ogol yahay arrinkan dhacaya waxay ku tiri haa wuu ogoliyay markastana wuxuu ku mashquulsan yahay carruurtiisa iyo xaaskiisa nolol xabsi ah ayaan ku jiraa leymana ogola in aan saaxiibo yeesho Mark ayaa intaa kadib wuxuu ku yiri arrin haddii aan kuu soo bandhigo ma iga aqbalaysaa waxa ay ku tiri nolol kasta oo tan dhaanta haddii aan helayo wax kasta waan aqbalayaa oo waxbaba maba diidayaba muhiimadda amase qisada sheekaduba bartan ayay ka bilowmaysaa horta intaanan u gelin ninkan Mark waxa dhalay nin taajir ah oo reerkoodu waa reer lacag haysta Mark ayaa u soo bandhigay arrinkii wuxuuna ku yiri aniga ayaa ku guursanaya waxa aan leeyahay guri weyn oo magaalada ka baxsan gurigaasna waa guri 4 dabaqa cid ku noolna ma jirto aniga keligay ayaa iska leh gurigaasna adiga ayaa yeelanaya hadda kadib inantii Lisa wuxuu ku yiri beritoole soo baxso halkaasna waan sugu imanaynaa kadib meel ayay ku balameen inantii iyo inankii way is arkeen sidiina way isku raaceen haddaba intii ay gaariga sii sarnaayeen Lisa ayaa moobilkeedii intay soo qaaday aabaheed qoraal u qortay ay leedahay aabbo waxba aniga hay soo raadinina hadda kadib nolol cusub ayaan bilowday oo nin ayaan isguursanay noloshii adkaynna saas ayaan uga baxay Mark ayaa ku yiri haddaba waxaad samaysaa inaga tuur moobilka iyo kaarka ku jiraba si aan laynoo soo dabagelin Lisana iyadoo faraxsan ayay tuurtay moobilkii iyo kaarkii wixii ku jiray oo dhan guriga uu wiilkani iska leeyahay wuxuu ka baxsan yahay magaalada oo wuxuu ku yaalaa dhinac koona ah gurigii markay soo gaadheen ayaa wuxuu ahaa guri aad u qurux badan oo 4 dabaqa waxaana yaalay 5 gaari 5 gaari haddaba yaa wata yaase iska leh maadaama gurigu cid leeyahay 5 gaariba waxa iska leh inankan taajirka ee Mark
Lisa bishii ugu horeysay ee ay isguursadeen wuxuu la dhaqmi jiray si qurux badan oo markastana gawaadhidaas mid ka mida ayuu ku qaadi jiray wuxuuna usoo iibin jiray shoobinku ka dambeeyo amase uu ka cusub yahay kana qaalisan yahay laakiin dhibaatada jirta ilaa iyo imanka Mark reerkiisa muu barin gabadhan oo wuxuu ku yidhaahdaa markasta magaalada way ka maqan yihiin markay yimaadaan amase ay soo noqdaan ayaan ku barayaa faamiliga iyaduna ninkan haba yaraatay kamabay shakiinba sababtoo ah bishii ugu horeysay wada joogeen wuxuu la dhaqmayay si maxaa kaa galaya wuxuu siin jiray cuntooyin faytamiina amase borotiin badan leh sida khudradda iyo faytamiinada kiniinada ah Lisa waxaa isbedelay jismigeedii iyo welibana muuqaalkeedii taasoo welibana miisaan badan ku kordhay markastana wuxuu baari jiray caafimaadkeeda iyo heerka dhiigigeeda gurigan 4 dabaqa waxaa jiray dabaqa ugu hooseeya in uu xidhnaan jiray gabadhana maalin ayuu weydiisay oo ku tiri halkan maxay u xidhantay horta markasta kadib markaasuu ku yidhi alaab qadiimi ah ayaa taala oo ma jecli in la galo iyadna mabay geli jirinba iskumanaanay dhibi jirin inay soo eegto intaa kadib maxaa dhacay maalin maalmaha ka mida wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaad soo eegto waxa ku jira halkan xidhan amase dabaqan hoose ee markasta xidhan haabay ku tiri waan rabaa inaan soo arko waxa yaala dabaqii hoose ayuu geliyey isagoo welibana kula indhaha isku qabo ilaa iyo gudaha aad u gelaysid ninkan Mark wuxuu samaynayay qol kasta oo ay galaan amase meeshay kasoo galaanba dib ayuu u xidhayay kadib markii uu ku yidhi haddaba indhahaaga kala fur ayaa waxay aragtay arrin mucjiso ah meeshan oo urteedu aad u xun tahay ayaa wax yaala kamarado fara badan sida oo kalena mindiyo fara badan intay naxdaba ku tiri waxane markaas intuu dharbaaxayu ku yidhi waa meeshii amase waa noloshaadii tani intii qosashaba ku tiri maxaad samaynaysaa maanta ma baraanka baad samaynaysaa oo maba aaminsanaba intaa kadib wuxuu ku xidhay silsilado waaweyn isagoo u hanjabaya qoslayana oo ku leh noloshaadii hore ee reerkiina kaga hayeen tan ayaa kuu dhaanta ee iska joog adigaana doortaye intaa kadib Lisa weli ma rumaysnaa waxay ku leedahay maxaa kaa siiya amba maanta kugu dhacay ee waxaan u samaynaysaa Mark ayaa ku yidhi shaqadeydii ayaan qabsanayaa ee waajibka igu ahayd markaasi ku tiri shaqadaadu waa nooc ma damu hadal wuu ka baxay saacad kadib waxaa ku soo noqday Mark iyo niman fara badan oo welibana dhakhaatiiro ah gabadhii ayay qaadeen oo qolalkii mid ka mida ayay geeyeen iyagoo dhiiga ka qaadaya oo baadhayana intaa kadib Mark ayaa wuxuu ku yidhi maxaad jeclaysan lahayd hadalka kugu dambeeya inuu noqdo amase aad sii tiraadid markaasuu ku tiri keliyata ii sheeg sababtaad sad iigu samaynaysid markaasuu ku yidhi haye buu ku yidhi waan kuu sheegayaa anigu waxaan ahay nin ka ganacsada xubnaha jirka bini'aadamka oo xubin ayaan welibana u iibiyaa anigoo welibana gabadh kasta sidan igu soo raacdo anigoon qasbin welibana shaqadaydu waxay tahay keliyata in aan isticmaalo social mediaha 24 saacadood oo aan gabadh isbarano marka dambena halkan usoo kaxeeyo si xubnaheeda aan u iibsado hadhowtoolana lacag badanna iisoo gasho ninkani wuxuu ka ganacsan jiray dumarka jirkooda amase xubnaha qofka bini'aadamka jirkiisa keliyata wuxuuna adeegsan jiray amase uu khadka ka baran jiray hablaha keliyata dumarkaas oo usoo kaxaysan jiray gurigiisa halkaasna lagu qali jiray oo lagu iibin jiray inan kasta run ahaantii Lisa iyadoo naxsan murugaysanna oo yaaban ayay iska aamustay sababtoo ah iyada ayaa isugu wacan oo qofay Facebooka ka baratay aamintay soona raacday sidaas ayayna ku dhimatay gabdho weligiin ha aaminina qofaad Facebooka ka barateen idinkoon aqoona u lahayn daawade haddii qiso noocan oo kale ah Facebooka ay kaa qabsatay amase mid lamida commentiga nagula wadaag haddii aad muuqaalkan amase qisadan ka heshayna fadlan ha ilaawin inaad like saarto saaxiibadana u share garaysa videogan daawade waqtigaaga aad ku daawanaysay muuqaalkan waan kaaga mahadcelinayaa